asalaamu calaykum ugu horeyn intaan filimkeena guda gelin waxaan idiga codsanayaa walaalayaal inaad si niyad ay ugu soo duceysaan sababtoo maalmahan ilaa ayaa saa'id iyo xanuunayso iyadoo sidaas haddana waxaan mar walba ku dadaala inaan idiin soo gudbiyo barnaamijyo aad u xiiso badan oo ka bogataan sidaas salni idinkan waxaan idiga codsanayaa inaad ila shaqaysaan oo muuqaalka like saartaan channelkana subscribe saartaan waajibaadkayga xaalad kasta oo ku jiro waan gudanayaa idinkan waxaan idiga codsanayaa waajibaadka idin saaran inaad gudataan oo aad garabkayga istaagtaan mahadsanidin maanta waxaan sharaxi doonaa filim Chinese fantasy horror oo soo baxay 2018 laguna magacaabo Water Monster. Filimka ayaa ku bilowday wiil lagu magacaabo Tosin oo doon la saaran aabihiis ayaa si lama filaan ah ugu wacay isagoo uu sheegay inuu yimaado si uu caawiyo Tosin. waxa uu sheegay aabihii inuu cabsanayo waxa uu sheegay qiso cabsi badan oo ku saabsan bahal biyaha ku dhex jira balse aabihii wuxuu kaloo wiilku sheegay in aanu ka warwarin sheekooyinka khiyaaliga oo ay dadku sheegayaan aabihii ayaa u dhiibay shabaqa wuxuuna ku booday biyaha si lama filaana waxaa meel fog ka soo muuqday makhluuq liyaab leh Tosin ayaa u wacay aabihii laakiin wax jawaab kamuusan helin aabihii ayaa si lama filaan u soo baxay oo u sheegay inuu nabad qabo Tosin wuxuu isku dayay inuu aabihii u sheego inay wax ku jiraan biyaha dhexdooda isla markiiba wuxuu arkay meel ka mid biyaha oo xumbeynaysa aabihii ayaa waran 3 geesooda ku tuuray biyaha oo wuxuu arkay kalluun madax ka go'an yahay kadib aabihiis ayaa maqlay cod uuna naxay wuxuuna u sheegay Tosin inuu si adag u adkeeyo doonta wuxuu eegayaa hareeraha si uu arko meesha uu ka imaanayo dhawaqa si lama filaana makhluuqii ayaa rogay doonta Tosin aabihii ayaana ka dhacay doontii Tosin wuxuu aabihii u tuuray xarig si uu caawiyo aabihiina wuxuu soo koray doonta korkeeda laakiin bahalkii ayaa jiitay xariggii oo markii dambe labadoodiiba ka tuuray doonta wiilkii Tosinna waxaa badbaadiyay aabihiis oo wuxuu ku soo dul tuuray doonta laakiin aabihiis waxaa qabsaday bahalkii daahsoonaa wuuna dilay waxa kadib jirkiisii ayaa ka soo muuqday oogada biyaha markii dambena makhluuqii ayaa la soo baxay gacan qalabsan taasoo ka naxisay Tosin muuqaalka xiga Tosin oo weynaaday ayaa ka soo kacay riyada naxdinta leh ee uu kula kulmay markuu aabihiis dhimanayay waxaa agtaagan saaxiibkiisa ugu dhow oo cunto u keenay asaga wiilkan yar oo lagu magacaabo Lucasin ayaa mar walba u yimaada si uu caawiyo Tosin kadibna wuxuu cararay meel dhow tuulada madaxa tuulada lagu magacaabo Tansi ayaa u hambaliyay nin lagu magacaabo Daitrag kadib markuu kulluumaysiga ku soo qabtay nooc ka mid ah kalluumada nin oday ah oo lagu magacaabo Tam ayaa u yimid si uu ugu sheego in odayaashii hore ay sheegeen haddii ay helaan kalluunkan oo kale aysan soo qaadan laakiin maysan dhagaysan warkiisa Tam wuxuu kala hadlayaa caqalka tuulada dib u soo cusboonaysiinta kaniisadda tuulada sida ay tahay in loo dedejiyo odayga ayaa u sheegay hilib iibiyaha oo lagu magacaabo Magnet Dao inuu shaqada iska yareeyo oo uusan naftiisa kalifin balse muusan dhagaysan wuxuuna flagaadiyay odaygii Tam ahaa Magnet Dao ayaa u sheegay Honglan oo ah gabadhiisii in walaalkeed ka yar Lucasin uu joojiyo orodka meel dhow iida Daitrang iyo VTU ayaa ka dooday saameynta ay ku leeyihiin Honglan ayaa ka naxday Tosin xilli ay dharka qalajisanaysay wuxuuna siiyey hadiyad ay jecleed balse isla markiiba ay u soo celisay aabaheed darteed aabaheed ayaa ugu dugay Tosin inuusan mar dambe u soo dhowaan gabadhiisa oo uu ka tago Tosin waxaa qabtay haweeneyda ah oo u sheegtay inaanu ka walwalin Honglan balse uu ku fikiro inuu naag kala guursado balse waxa uu sheegay inaanu waxaas dan ka lahayn isla markiiba nin baa suuqa soo galay si uu ugu sheego in qof ku dhintay webiga intaa kadib waxay dhammaantood ku soo aruureen agagaarka meydka oo madaxiisu ka maqan yahay oday Tam arrintaa waxay xasuusisay sheeko 10 sano ka hor ah inuu bahal biyaha dadka laayay caaqilkii tuulada ayaa weydiiyey Tam waxa ay ka qaban karaan oday Tam ayaa u sheegay in 10 sano ka hor amiirad la dhihi jiray Hong Hong ay u hurtay qof sidii ay ugu hori lahayd bahalka macnaha waa arrin caado dhaqameed u ah qof iyaga ka mid ah ayay bahalka ku sharfi jireen intuu cuno ayuuna iska bixi jiray muddo ayuuna ka maqnaan jiray intaas waa sharaxaad dheeri ah oday Tam ayaan u sheegay in arrinta ay tahay in marka la sameeyo Magnet Dao ma rumaysna arrinta Tam uu sheegay Tosin ayaa ka carray goobta oo Lucasin uu ku arkay webiga agtiisa isagoo isku dayay inuu qabto shimbiraha wuxuuna sheegay inuu guriga aado laakiin Lucasin ma uusan dhagaysan isla markiiba bahal ayaa qabsay shimbirtii Lucasin isku dayay inuu qabto Tosin waxa uu sheegay Honglan in ay dharka ku dhaqan biyaha agtooda sababtoo ah waa khatar waxa uu damcay inuu ku qanco inay tuulada isaga tagaan balse aabaheed ayaa soo noqday uuna cararay si uu uga dhunto aabaheed ayaa u yimid si uu u weydiiyo halka uu joogo walaalkeed Lucasin wuxuuna u sheegay inay raadiso isaga Honglan waxay aadaysaa kaynta
si ay u soo hesho. dhanka kale Lucansin waxa uu ereynayaa shimbirtii biyaha lagu jiitay. waxa uu galay biyaha isagoo gacmihiisa ku raadinaya shimbirta, balse shimbirta beddelkeedii waxa uu arkay Seen. muuqaalka xiga fiidkii dhowr qof ayaa bilaabay raadinta Lucansin kaynta dhexdeeda. Tam oo soo gaaray goobta ayaa waxa uu xasuusiyey madaxa tuulada. waxa uu yidhi maalin dhoweed, wuxuuna bilaabay inuu iska ooyo. muuqaalka xiga dadka tuulada waxay sameeyeen qurbaan. Tuusin iyo saaxiibkiis waxay fadhiyaan meel dhow si ay u daawadaan qurbaanka la sameynayo. si lama filaana Magna Daw ayaa yimid si uu u kala firdhiya allabariga, wuxuuna laaday taalada bahal biyuudka, wuxuuna inkaaray shaydaankii. Tam ayaa carooday oo wuxuu ugu yeeray nimanka si ay uga qabtaan oo u duciyaan bahalka biyaha si uu u qanciyo isaga. muuqaalka xiga Tam wuxuu la hadlayaa taliyaha tuulada si aysan ugu ogolaan karin Magna Daw inuu sii wado kacdoonka ama rabshada. isla markiiba waxay maqlay dhawaaq, waxayna oga shakiyeen inuu Magna Daw yahay. dhanka kale tuulada oo dhan ayaa isugu soo aruurtay agagaarka Magna Daw, kaas oo qaraxyo ka wada biyaha dushooda si uu u soo saaro bahalka biyaha. intaa kadib Magna Daw waa la xirxiray. Honglan oo gabadhiisa ayaa u timid si ay cunto ugu keento aabaheed. taliyaha tuulada ayaa u sheegay inuu kula taliso aabaheed inuu joojiyo dhibaatada. Tuusin wuxuu tegay gurigiisa si uu u xasuusto xasuustiisa carruurnimada iyo waxyaalihii uu la samayn jiray aabihiis. intaa kadib Tuusin wuxuu aaday si uu la kulmo Magna Daw, wuxuuna u sheegay inuu ka badbaadinayo bahalka. laakiin Magna Daw ayaa Tuusin ugu yeeri fulay, kaasoo ilowsan inuu dilay aabihiis. habeenkii dambe Magna Daw waxa uu maqlay shanqar socod ah, waaba bahalkii oo fuulaya dhismaha korkeeda. bahalkii ayaa cod dhuuban ku dhawaaqay magaciisa, korkiisa ayuuna ka yimid, wuuna dilay. muuqaalka xiga Honglan ayaa timid iyadoo bariis u wada aabaheed, laakiin waxay ugu tagtay halkaas aabaheed oo madax ka go'an, wayna qaylisay. intaa kadib Tam waxa uu sheegay caaqilka tuulada in aan qurbaanka dib loo dhigi karin. dadkuna waa isku wada raaceen arrintaa, balse waxay la wada yaaba yihiin oo isweydiinayaan yaa la siin doonaa bahalka. Tam waxa uu soo jeeday in la huro Honglan, laakiin Tuusin ayaa diiday. cid kaloo aqbashayna ma jirto. Honglan ayaa timaaday oo waxay ogolaatay in la huray iyada, laakiin Tuusin ayaa mar kale diiday. Tuusin wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo inaysan bixin Honglan, laakiin nimankii ayaa ka xistay. Tam wuxuu sheegay inay geeyaan qolka xaabada oo uu sheegay in allabarigu uu dhici doono 3 maalmood gudahood. muuqaalka xiga waxaan ku aragnaa in Tuusin iyo Honglan ay ku xiran yihiin meel dhow midka kale. Honglan waxay Tuusin uga warantay sida ay u doonayso inay u guursato nin wanaagsan oo ay og tahay inuu u wanaagsan yahay iyada, laakiin bahalkii ayaa wax walba uga dheelay iyada. wuxuu damcay inuu kaxeeyo, balse way diiday oo waxay u sheegtay inuu iska tago oo ilaawo iyada. intaa kadib Tuusin ayaa la arkayaa isagoo xasuusanaya waayihiisii hore ee Honglan, wuxuuna go'aansaday inuu ugaadhsado bahalka biyaha. waxa uu samaystay dhowr fallaaro si uu ula dagaalo bahalka biyaha. Tuusin saaxiibkiis aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu raaco. Tuusin ayaa sheegay inay tahay inuu aado oo la kulmo qaar ka mid ah walaalihiis, kuwaasoo mar hore ugu dambeysay. intaa kadib waxay aadeen guri ay kula kulmeen 4 nin kale oo ula socda hogaamiyahooda lagu magacaabo Banban, kaasoo u kaxeeyo doon ay u isticmaali karaan inay ku soo qabtaan bahalka. muuqaalka xiga dadku waxay isku soo aruureen hareeraha webiga si ay u huraan Honglan oo lagu qaaday doon si loo geeyo webiga. Tuusin raggii intiisa kale waxay yimaadeen goobta, wuxuuna u sheegay inuu u yimid inuu badbaadiyo Honglan. wuxuu dadku sheegaa in bahalku aanu ilaah ahayn ee uu yahay bahal dad cuna oo ay waajib tahay in la dilo. wuxuu kaloo dadka u sheegay in muddo dheer ay ku noolaayeen nolol fulaynimo ah, balse hadda kadib aysan sii ahaan kuwo fulayaal ah. wuxuuna dadku u sheegay inay soo raacaan asiga si ay ula dagaalamo bahalka. Trangi VVTU hadalkiisii ayuu ku raacay, waxayna go'aansadeen inay raacaan asiga. muuqaalka xiga ayaa dhammaantood waxaa lagu arkaya doonta iyagoo isku diyaarinaya inay qabtaan bahalka. maalintii xigtay kadib ragga waxay bilaabeen inay ka cawdaan inay sugayaan maalintii oo dhan oo aysan waxba helin, balse Banban ayaa u sheegay inay sugaan. silsiladihii ay ku tuureen biyaha ayaa bilaabay inay dhaqdhaqaaqaan, isla markiiba way soo jiideen laakiin waxba kamaysan helin. mid ka mid ah nimankii ayaa ku booday biyaha si uu u helo bahalkii, laakiin waxaa lagu jiitay biyaha oo waana la dilay. si lama filaan bahalkii biyaha ayaa soo booday oo nin kala qabsaday, laakiin Tuusin ayaa waran 3 geesood ah ku tuuray isaga, laakiin bahalkii uu iska difaacay oo horey u sii watay inuu dilo ninkii. Tuusin wuxuu mar kale ku tuuray wararkiisa 3 geesoodka ah, taasoo ka dhigaysa inuu ordo bahalka. bahalkii ayaa wuxuu isku dayayaa inuu qabsado Honglan, laakiin Tuusin ayaa weeraray, wuxuuna ku dullacay doonta. wuxuuna bahalkii arkay dadkii meesha joogay dhammaantood hubkoodii bay ku tuureen, laakiin bahalkii wuxuu ahaa mid ka gambada dhammaan waxyaabihii ay ku soo tuureen. dagaal weyn baana ka dhacay meesha.
waxay isku dayeen inay shabaq ku qabtaan isaga balse nasiib xumo uu ka baxsaday. habeenkii markii la gaaray baanbaan iyo hal nin oo kale ayaa go'aansaday inay baxaan, laakiin Tosin wuxuu u sheegay inaysan ammaan ahayn iyaga waayo bahalku uu garanayo aqoonsigooda. hadda nin la socday baanbaan ayaa go'aan ku gaaray inuu iska tago asiga. si kastoo ay ahaataba wuu baxay, wuxuuna maqlay qaylo cabsi leh wuuna cararay. si kastoo ay ahaataba waxaa si gaadmaha u soo weeraray bahalkii biyaha wuuna dilay isaga. intaa kadib bahalkii biyaha ayaa u baxay inuu la kulmo raggii intiisa kale. wuxuu qabsaday nin caws ka samaysan oo qof u malaynayay, isla markiiba waxay bahalkii ku xireen qolka oo waxay ku tuureen dhowr hub, laakiin waa uu ka leexleexanayay. wuxuu isku dayay inuu baxsado balse nimankii ayaa dhaawaceen. isla markaana Tosin ayaa u yimid si uu la dagaalamo isagoo uu tafallaaro oo ku qiyaameynayo xayawaanka ilaa ay ku qabtaan xabsi uu diyaariyay Tosin. muuqaalka xig waxaa la arkayaa madaxa tuulada iyo dadka tuulada oo daawanaya bahalkii biyaha ee Tosin uu qabtay. qaarkood ma hubin in kan yahay bahalkii, laakiin Tosin waxa uu xaqiijinayaa in kan yahay bahalkii oona tuulada tawaankii Tui ay nabad tahay. dhammaantood waxay ku ammaaneen inuu yahay geesigoodii, waxayna ku qaylinayaan in bahalka la gubo. oday Tam waxa uu yimid si uu u joojiyo heesahooda, wuxuuna u sheegay in bahalkan uu jili doono iyaga oo dhan. wuxuu kaloo Tosin u sheegayaa inuusan u qaadin inuu sameeyo wax wanaagsan sababtoo waxay arrintan saameyn doontaa dhammaantood. caaqilka tuulada wuxuu amray in xaflad loo sameeyo geesiyaashooda. caaqilka tuulada ayaa u sheegay dadka inay nastaan oo ay go'aan ka gaari doonaan subaxii waxay ku sameyn doonaan bahalka. kulligood waxay bilaabeen inay xafladeeyaan. intaa kadib Tosin iyo Honglan waxay aadeen meel cidlo oo ay ku wada hadlaan. meel aan fogeyn Daitarang iyo VV2 way oonayaan sababtoo Honglan waxay jeclaatay Tosin. muuqaalka xiga Tam ayaa la arkayaa isagoo jilba jabsanaya bahalkii xirnaa hortiisa. Tosin saaxiibkiis ayaa u yimid inuu ka maadisto bahalka wuuna ka tegay. qof kasta oo tuulada degnaa wuxuu ku noqday gurigiisa si uu u seexdo. tuuladiina way aamustay. dhanka kale Tosin iyo Honglan waxay aadeen gurigoodii wayna isdhunkanayaan halka Tosin saaxiibkiis uu basaaso iyaga wuxuuna dhegaysanayaa sheekadooda. intaa kadib Tosin saaxiibkiis wuu baxay isagoo ku faraxsan dhammaan wixii dhacay. Tam ayaa hurdadii ka kacay oo wuxuu arkay qafiskii oo faaruqa sababtoo bahalkii ayaa jibiyey. bahalkii wuxuu aaday dhanka oday Tam si uu nafta u dhaafiyo. intaa kadib bahalkii wuxuu aadayaa tuulada si uu u weeraro dadka, laakiin waxaa soo weeraray Tosin saaxiibkiis. laakiin nasiib xumo waxaa ka takhalusay bahalkii. muuqaalka xiga ayaa la arkayaa dadka oo meydkooda la baroodiiqaya. dadka qaarkiis waxay ku eedeeyeen Tosin wixii dhacay. caaqilka tuulada ayaa dadka u sheegaya dhammaantood inay u mudoobaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen bahalka. muuqaalka xiga Tosin ayaa la arkayaa isagoo timihiisa iska xiraya oona isku diyaarinaya inuu ugaarsado bahalka, waxayna dhammaantood isku diyaarinayaan ugaarsiga. intaa kadib Tosin ayaa lagu arkayaa meel uu doonta isagoo ku sugaya bahalkii. biyihii ayuu isku dhex tuuray wuxuuna hareeraha ka egay bahalkii. waxauna arkay bahalkii ogtiisa jooga, laakiin bahalkii ayaa bannaanka u soo tuuray wuxuuna ku dul dhacay doontiisii. nimankii doonida saarnaa ayaa isla markiiba soo jiiday doonidii Tosin saarnaa oo dib ugu soo celiyay doontii weyneed. bahalkiina wuu ceersanayaa doontii wuxuuna bilaabay inuu nimankii weeraro. bahalkii ayaa ku booday Honglan, laakiin Daitarang ayaa isku dhigay si uu badbaadiyo. Tosin iyo bahalku waxay bilaabeen inay dagaalamaan. xayawaankan wuu sii daciifayaa. intaa kadib Daitarang iyo Honglan ayaa ku guulaystay inay qabtaan bahalka. Tosin ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay, laakiin bahalkii wuu iska kala tuuray dhammaantood. bahalkii ayaa soo istaagay isagoo dhaawaca wuxuuna weerar ku qaaday Honglan, laakiin waxaa falaar ku toogtay Tosin. Baanbaan iyo Daitarang ayaa isku dayay inay joojiyaan bahalka balse wuu dhaawacay. Honglan waxay isku dayday inay mindi ku dhufato bahalkii, laakiin wuu kala tuuray. bahalkiina wuxuu dilay VV2, Baanbaan iyo Daitarang. hadda Honglan iyo Tosin oo keli ayaa nool. bahalku wuxuu aadayaa si uu weeraro Honglan, laakiin Tosin ayaa mindi ku dhuftay. bahalkii iyo Tosin waxay isla galeen biyaha. Tosin ayaana ka adkaaday bahalkii oona dilay. Tosin iyo Honglan waxay ku noqdeen tuulada, wuxuuna Tosin arkay wejiyada saaxiibadii iyo aabihii ee uu naftoodii waayay. muuqaalkeena maanta halkan ayuu ka eegyahay. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka hesheen. fadlan ha iloobin inaad muuqaalka like saartid, channelkana subscribe saartid. wixii fikradaada ah commentiga noogu reebtid. mahadsanid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Body, 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 body.